Hi guys, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelka Cilmi FX. Mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waa anigoo ahaa Cilmi. Waxaan rabaa maanta inaan muuqaal ka sameeyo muuqaal aad u muhiim ah oo asxaab aad u fara badan aan aad isugu dhownahay ee dhahin ka soo hadal. Marka mawduucaas wax kale ma ahan, mawduucaas waa structure-ka suuqa, qaab dhismeedka suuqa siduu u shaqeeyo. Run ahaantii hadda hadii aan dhaho waa soo koobaya, waxaan dhihi karaa waa wax ugu fudud. Haddii si loo fiirshana waa wax ugu adag dadka markii suuqa cusub wax ugu adag waay. Li'annahu inaad suuqa kala saarto inuu kor u socdo iyo inuu hoos u socdo waa ayadaba hawl u baahan baaritaan oo so waxaan isku dayaa maanta inaan daqiiqado kooban idinku fahansiiyo waxa loo yaqaano major structure-ka iyo minor structure-ka. Aad fahanteen aan rajeynaya. Waxa loo yaqaano major structure-ka iyo minor structure-ka. So si yaroo fudud oo theory ah idinkugu diyaariyey. Waxaad halkan uga jeedaa bara yar oo madow haddii aan farta kugu fiiqo waa kuwana oo ku calaamadaysan major structure-ka ama external structure-ka lowgiisa iyo highgiisaba. Barahan kaleeta ee guduudan ayagana aragto waxaa loo yaqaanaa internal structure ama waxaa loo yaqaanaa minor structure. So minor structure-ka iyo wuxuu ka dhex samaysmaa major structure-ka highgiisa iyo lowgiisa inta u dhexeyso. Inta fahantiin aan rajeynaya. So minor structure ama internal structure sababta internal loogu bixiyo waxaa waaye wuxuu ku dhex jiraa swing lowgeena ilaa swing highgeena dhexdiisa. So labadaba shaqay kala qabanayaan. So labada shaqo ay kala qabanayaan hadda kuu sheego marka external structure-ka iyo internal structure-ka waxaa waaye external-ka waxaa ku ogaanaysaa suuqa jihada guud ee uu haysto inaad buy ugu dirto inaad sell u dirto jihada micnaha markaad trade galaysid aad long term trade galaysid oo kaleeto meesha aad target galaynayso waa external liquidity waa external maxaa la structure so internal-kan asagana wuxuu taraa wuxuu ku sheegayaa xilliga ay leedahay inaad marka buy dhahdo ama xilliga ay leedahay inaad sell dhahdo ma fahante marka tusaale ahaan had dirtaan sidaad aragtaanba suuqan wuxuu sameynayaa high highs and high lows as you guys can see it. So high highs and high lows dadkaan aqoonin waa suuq uptrend ah jihada markii uu uptrend haysto suuqa uu sameeyo sidaad halkan ka aragtaanba waa high highgiin horta ugu horeeya waa kana. So high low kan waxaa lagu bixiyay marka wuxuu ka hooseeyaa highgan. So this low is lower than this high. So that's why we call it a higher low. So this is a high, this is a low. That's why we call it higher low. This is a higher high. So wuxuu noo sameeyey high suuqan wuxuu noo cadiyey marka high uu sameeyey lowgan inuu strong yahay uu awoodayba inuu highgan ka kormaro. So that means lowgan uu adag yahay waa strong low. Waxaan ka rabnaa suuqa in uusan jibin lowgan. Mar walba oo suuqa soo baxo meelahan ha ku dhex baashaalo ha ku dhex sameeyo external structure iyo maxaa la internal structure nooc walba ah but muhiimadeena ugu weyn waa inuusan jibin. So haddii la jibiyo maxaa dhacaya marka haddii la jibiyo micnaheedu waxaa waaye wax kale ma aha wax weyn ma dhicin suuqii aad buy u raadinaysay theory-ga aad haysato ahaa buy inaad suuqan u raadiso ayaa isbedelaya wuxuuna isku bedelayaa sell inaad u raadiso because of waxaa suuqa soo galay low inta inaad fahanteen aan rajeynaya marka suuqa hadda wuxuu sameynayaa higher highs and high lows. So this is a higher high, this is another higher low. Lowgan high ma sameyn markuu meeshan maraya waa may so weli low strong ma aha markii halkan uu jibiyey oo highgan ka kormaray uu sameeyey highga wuxuu noo cadeeyey suuqan inuu strong yahay so waxa kaliya haddana usii raadinayno suuqa waa jihadiisu haystaa waa inaan u raadinaa buy position only ilaa ay dhacdo in la jibiyo lowgan markii la jibiyo suuqa hadirtan hogaaminaya markaas waa suuqa markaan dhehayno markaan sell aan u dirayno. So this is a strong low hadirtan marka again high markii la sameeyey kadib suuqa push mar walba uu sameeyo sidaad ogtihiinba ama aad hore usoo barteen haddaad hore usoo maqshay haddii aadan hore usoo maqlin aniga hadda kuu sheegaya suuqa mar walba uu sameeyo move impulse ah wuxuu sameeyaa correction move. So correctionka waxaa waaye retracement waa nasiino suuqa mar walba uu move kor ah sameeyo oo impulse awood badan waxaa xiga move kaloo yar oo nasiino ah sidaad aragtaanba guys haddan theory-gan aan idin diyaariyey suuqa mar walba uu sameeyo push ama impulse waxaa xiga waa correctionka waa nasiino marka correctionka marka uu dhamaado waa marka adiga lagaa rabo inaad trade raadiso sidaad ku ogaan doontid aniga hadda idin sheegi doono ama concept kaleeto muuqaal kale aan kasoo diyaariyo ama gadaal aan kaga sheego but inaad ila socotiin aan rajeynaa dirtaan. So mar walba impulse dhaco waxaa dhaca wax loo yaqaano correction ama retracement. So retracement-ga markii uu dhamaado haddana maxaa dhacay another push another impulse move.
so impulse move kan haddana maxaa xigo retracement very easy another push aa dhaca haddana oo sameeye high maxaa xigo retracement because of suuqa mar walba push sameeye iska soconaya weligiis aliis wuxuu u baahan yahay nasiino so retracement suuqa dartan sameeye sidaad aragtaan and then maxaa dhacay push which make high so so sidaad halkan ka aragtaan badana waxaa la sameeyey high so maxaa xigo high low in la sameeyo weliba lagu sameeyo corrective way so retracement in la sameeyo ahayd suuqa kadibna uu sameeyo another impulse but maysan dhicin maxaa dhacay bedelkeeda another impulse baa soo galay impulsigaas uu sameeyey break of structure ama change of character sidaad u taqaanid with- which changed in the direction of the market suuqa jihadiisa dhan buu bedelaba macnaha so asigana conceptigan haddirtaan dhamaadkan idinkaga hadli doonaa markii haddirta aan dib ugu soo laabto marka conceptiga ah high and high lows iyo structure iyo external structure iyo internal structure intiin aad ila fahanteen aan rajeynaya marka so internal structureka marka shaqadiisa waxa uu qabanaya waxaa waaye sidaan hore idinkugu sheegayba inuu kuwa kala xaqiijinayo jihada guud ee suuqa so internal structureka laakiin wuxuu kuu qabanayaa hawsha ah goorta la gali doono so mar walba uu suuqa move sameeyo oo high sameeyo marka adiga high uu sameeyo buy waad dhehaysaa suuqa waad ogtahay balse intee buy ka dhehaysaa marka meesha aad buy ka dhehaysid waa halkee so meesha aad buy ka dhehaysid waa low suuqa inuu low sameeyaa kadib aad buy dhihi kartaa but suuqa asagoo qiimihiisa already markii horeba kacsanaa oo suuqi markiiba bax inaad buy dhahdid ma kugu soo dhacayso so waad sugaysaa ilaa qiimihii hore ee suuqa uu sameeyey oo ah highgan wax ka raqiisan la sameeyo wax ka raqiisan waxaa ka wadaa low so lowga markii la sameeyo marka goormeed galaysaa marka adiga so goorta aad galaysid meel kale ma ka raadinaysid meesha aad ka raadinayso waxaa waaye structurekan soo socdo kusoo socdo lower low lower high lower low lower high lower low lower high lower low high so structurekan markii la bedelo soo socdo internalka ee iswaafaqaan hadda laba time frame iswaafajisida qurux badan ilaa saddexda ka dhigi karta qurux badan laakiin aniga inta badan laba iswaafajiya ilaa saddex so time frame keena weyn ee majorka ah so time frame kan waxaan dhehnaa marka waa 4 hour time frame keena this time frame aad ku arkaysid sameey high-ga waxaa kasoo qaadnaa inuu yahay marka 4 hour time frame keena time frame kan dhibcaha yaryar oo guduudan aad idin saarayna waxaad u qaadanaysaa inuu yahay 15 minute time frame kaaga so it's your entry time frame so 4 hour time frame kaaga jihadii uu kuu sheego suuqa but 15 minute kaaga waxaad ka rabtaa inuu kuu sheego when to enter the market so si ku ogaanaysaa marka waxaad ku ogaanaysaa inuu sameeyo last high-gaas sameeyey lowgan internalka ah in lagu sameeyo break of structure intaas inaad ila fahantiin aan rajeynaa intaa markaad ila fahantaan waxaa dhacaysa marka so sidoo suuqa muxuu sameeyey marka suuqa wuxuu sameeyey inuu jibiyo high-gan uu sameeyo high sidaad aragtaanba so waxaa iswaafaqay marka haddirtaan time framekaagii hore oo weynaa oo ahaa high time frameka ama external liquidity external structurekaaga iyo waxaa iswaafaqay internal structurekaaga so external structurekaaga muxuu kuu sheegaya in la sameeyo high suuqan jihadiisana ay tahay bullish fursadda keliya aad ka raadaysid ay tahay buy externalka laakiin wuxuu kuu sheegay qof walba inuu hool oo qabanaa externalkan wuxuu kuu sheegay goorta aad gelaysid so goorta aad gelaysid waxaa waa suuqan already wuxuu sameeyey retracement so retracementigiisa ugu dhamaaday halkuu ku dhamaaday highgan baa la jibiyey so high baa sameysmay buy baad ka raadinaysaa marka eridan so this is where you enter the trade so haddana sidii oo kaleetaa dhacday marka buy aad dhahday waxaad uga baxaysaa marka next high-gaaga waa high-ga hore loo soo sameeyey marka suuq haddana wuxuu sameeyey marka kaleeta high so suuq high uu sameeyey haddana waxaan rabnaa marka inaan buy dhahno meesha ma buy ka dhahaynaa waa maya because of already market is over extended jaa waxaa waa macnaha meesha suuq meel sarooba joogaa waxa ma gadanaysa adiga ma fahantay so iphone oo kaleetaa soo baxay tusaale ahaan iphone markuu soo baxo oo 1,100 ama 1,200 ama 1,500 kusoo baxo kaleeto aad lacagtii aadan awoodin laakiin aad og tahay iphone 15 hadda soo baxay 16 markuu soo baxo 15 inuu raqiisi doono waad sugaysaa ilaa uu ka raqiiso so wuu soo raqiisay and then wuxuu imaaday suuqa low cusub sida aragtaanba so lowgan cusub markii uu imaado goormeed galaysaa waxaad galaysaa internal structurekaaga lasoo waday markii oo lagu sameeyo change of character so change of characterkan ayaa kuu sheegaya in internalka uu dhamaaday waxaa iswaafaqay marka high time framekaaga hore oo soo sameeyey high-ga iyo internal structurekaaga oo haddeertan kusoo socda bearishness so waxaad galaysaa tradeka buy aad galaysaa adigoo raadinaya demand iyo weliba sorry
structure-kaaga iyo adigoo raadinaya liquidity-gaaga iyo concept kale gooniya waa laakiin adigoo micnaha og inuu labada time frame hadirtaan iswaafaqeen waxyaabaha kale gadaal uga dirsinaysa aniga gadaal idinkaga raaci doono muuqaalaba kaleeta aan kasoo sameeyo haddaan rabo so suuqa wuxuu u sameeyey marka high high so laba trade oo xagga waxaa ku heshay marka profitable trades aad ay u qurux badnaayeen mo inaad ila fahantiin waan rajeynaa marka waxaa dhacday marka haddana mar kaleeto suuqa wuxuu sameeyey marka high high waxaan rajeynayna waxaa waaye sidii halkan kasoo dhacdo kaleeto inuu noo sameeyo marka retracement kadibna aan change of character aragno kadibna aan u galno buy soo ma but ma aysan dhicin maxaa dhacay impulse movekii baxay oo high high sameeyey ayaa haddana dib u soo isaga mid lamid aha soo laabtay weliba wuxuu sameeyey markaan wuuba jibiyey so lowgan markaan awood ma lahan waxaana caddeeyey highgan highgan siduu ku caddeeyey inuu lowgan uusan awood lahayn wuxuu ku caddeeyey waxaa la rabay inuu celiyo sidii kuwaan isku difaaceen oo kaleeto ee lowskooda u ilaashadeen inuu kana ilaashadaa loo baahnaa lowgan so wuu ilaashan waaye waa la jibiyey so asaga ayaa noqday week low so waxaa suuq sidaas noogu samaysmay lower low suuqii uptrendka kusoo socdeen saacan laga bilaabo wuxuu isku bedelay bearish oo wuxuu isku bedelay downtrend market intina dila fahantiin aan rajeynaya intina dila fahantiin aan rajeynaya marka low low suuqa markii oo sameeya marka waxaan u baahannahay waa maxay marka waxaan u baahannahay marka dirtaan suuqa wuu isbedelay jihadii mogtahay jihadii ee suuqa way isbedeshay marka waxaan sameynaynaa waa inaan tugnaa marka retracement haddana inuu noo bilaawdo so seel aan dhehayna suuqa ognahay lugtan baa noo sheegtay inaan seel dhahayn inta maa seel ka dhehayna may already bixii waxaa waaye hoos aybu joogaanba so waxaad sugaysaa ilaa suuqa retracement uu sameeyo so retracement uu ku sameynaya correction move ku sameynaya so soo laabanaya and then goormee marka la ogaanayaa in correctionkan uu dhamaaday oo suuqan u socdo sell waxaa ogaanaysaa si kale ma ahan suuqan haddirtaan yare oo retracementiga soo laabanaya wuxuu sameynaya high high and high low so high high and high low sameynaya so high highgan high lowgii sameeyey oo ah kan in la jibiyaad sugaysa markii saas loo jibiyo wuxuu ku caddeeyey marka high time framekaagii ama supplyga meeshan ku jiro ee sameeyey lowgan inuu awood leeyahay oo haddana mar kaleeta sameeyey weliba intuu ka sameeyey lower time framekaaga oo ah 50 minute time frameka so intrigaaga halkan ka qaadanaysa haddana mar labaad late buy aad soo dhehaysa haddana sell aad dhehaysaa so sida keliya ee suuqan aad horumar uga gaari karto waa inaad la socotid structureka marketka iyo swing structureka inay ku kala saaran yihiin swing structureka iyo external structurekaaga iyo internal structurekaaga iyo dhammaan inaad fahansantaha loo baahan yahay kadib waa suuqa markaad u gudbi doontid marka liquidity iyo waxyaabaha kaleeta iyo imbalance iyo waxyaabahaas waa gaare wax ugu muhiimsan aad rabtid inaad ogaatid markaad suuqan ku cusub tahay aadan si aadan ugu wareerin waxyaabahaas kaleeto waa structureka wax walbana asagay hoos imaanayaan liquidityga lagu sheegayo sababtu sida uu ku samaysmaa markaad fiirisid waa structurekii leba liquidity wax meel kale ma ka samaysma structureka ka dhex samaysma structureka qaab dhismeedku sameynaya waa ka samaysmaya kadib aad waxaan dhihi karnaa buy side liquidity suuqa ku jiro ama sell side liquidity suuqa ku jiro iyo wixii la midka ah so muuqaalkan waxaa waaye waxoogaa wuu nagu dheeraada qorsheyga muusan hayn ilaa iyo 13 daqiiq inuu soo gaaro but way dhacday conceptiga runtii waxaa waaye aad iyo aad ayuu nagu macaanaaday marka waxaan rajeynaya inaad wax un ka faa'iidid waxaan rajeynaya inaad asxaabtaada kuwii wadana in ayagana aad u sheergarayso aadan noqon bakhiil wax qurux badan markii noloshaada kusoo biiraan waxaa qurux badan inaad dadkaaga la qaybsato oo ayagana faafiso so haddii uusan youtube channelka subscribe ku ahayn waxaan rajeynaya inaad subscribe dhahdid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kaleeto muuqaaladani muuqaalo kaleeto la mid ah inta badan youtubekeyga wuxuu u badnaa aniga trade breakdowns dad badan oo markii la soo xiriiray waxay sheegeen in trade breakdownska ay zaid ugu badan yihiin youtube channelkeyga dadka suuqa ku cusubna aysan hore ka fahmi karin because of nin trade galaya bataaba already mogta so tradekan sababtaad u gashay iyo waxyaabahaas oo dhan muuqaal gooniyaad nagu samaynayso waxaa waaye noo samee ayay yiraahdeen marka insha allah biidnillahi kariim muuqaalada muuqaal la mid ah soo badi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu